waxaa halkan ila taagan xarunta golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Cabdisalaan Hadliyo Cumar oo tan iyo markii uu kulanka ka furmay maalintii Isniinta ku sugnaa xaruntan qaramada midoobay ee New York mudane marka hore ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga VOA waa aad baa mahadsantahay Aasha aan ku horeeyo horta marka ugu horeysa VOA waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradii 75aad ee markii la aasaasay maxaa ka dhigay waxaan leenahay VOA-da hala dhageysto waxay keenaan information loo baahan yahay information dadka isku soo dhaweeya information la isticmaali karo siyaabo badan waxaan leenahay go VOA aad baad mahadsantahay mudane aan u soo noqdo marka kulanka aad ka qayb galaysay golaha guud ee qaramada midoobay mar dhowna waxaad ka soo baxday kulan albaabada u xiran yihiin oo wadamada igaadi lahaayeen oo Soomaaliya ku saabsan bal waxaad naga warantaa tan iyo markii kulanka uu bilowday bal kulamadii aad ka qayb gashay iyo waxyaabihii laga hadlay kulanadu way kala qaybsan yihiin 3 kulan baan 4 kulan baan ka qayb galay ka ugu horeeyay wuxuu ahaa waxa laga hadlayay qaxootiga adduunka iyo sidii loo caawin lahaa waad ogtahay wadan waxaan qaxooti badan ka maqan yahay oo dadkeenu dibadaha ku dhibtaysan yihiin aad baan uga qayb galay 3 goobood oo lagaga hadlayay waxaan u sheegnay in wadanka iyagu nabadgelyo yahay inuu inta hadhina nabadgelyo ay soo noqonayso in dadkiisu loo baahan yahay inuu ku soo noqdo ciis iyo sharaf iyo aan cidna la qasbin qofkii wala doonaya inuu Soomaaliya yimaadana uu ku soo noqdo wadankiisa ka qayb galo sidii loo dhisi lahaa sidii wax looga qaban lahaa sidii loo xasilooleyn lahaa qofna ma rabo inuu qaxooti ahaado noloshiisoo dhan inkastoo waraysi aan la yeeshay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliya Axmed Daahirna uu hore uga hadlay haddana maxaa lagu soo gabagabeeyay arrimihii qaxootiga Soomaalida ka hadasheen waxa lagu soo gabagabeeyay in lacag badan baa ayaa la rays gareeyay waxa la gartay in mataqaanaa dawladaha kaliya iyo UN kaliya una wax ka qaban karin adduunku isku wada yimaado businesska shalayto wuxuu qabtay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama summit buu qabtay oo anigu aan ka qayb galay oo lagaga hadlayay sidii dadka tabaalaysan wax loogu qaban lahaa sidii looga dayn lahaa cunsurnimada sidii aan sida xun loo eegayo loo joojin lahaa wadamadoodiina lagu soo celin lahaa amba wadamaday tageen lagu dayactiri lahaa wax aad u fiican baa ayaa ka dhacay 64 milyan oo qof baa qaxootiga adduunka annaguna waxaan nahay wadanka saddexaad ee qaxootigiisu ugu badan yahay adduunka marka waa wax fiican baa ayaa ka socda goor dhaweyd sida muuqato waxaad ka soo baxday kulan albaabada u xiran yihiin oo muddo saacadaha socday oo laga hadlayay Soomaaliya wadamada igaadna ay ku dhamaayeen kulankaasi muxuu ku saabsanaa kulankaasi Soomaaliya kaliya laga hadlayay Soomaaliya progresska ay samaysay baa loo dabaaldegayay wuxuu ahaa kulan dawlad Soomaaliya ay saaxiib yihiin amba wax ka dhaxeeyaan oo ka maqnayd hal dawladna ha ahaatee ma jirto waxa jeergareynayay aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska iyo wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa waa shir wuxuu ahaa wuxuu ekaaba wixii loogu talagalay maybe inuu noqon dabaaldeg buu ekaa dabaaldeg la leeyahay Soomaaliya hore u socotaa waxaan ka hadli jirnay Soomaaliya dhimanaysa waxaan ka hadli jirnay dad qaxootiya waxaan ka hadli jirnay imkana waxaan ka hadlaynaa election baan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa shirkii madaxda iigaadoo lagu qabtay Soomaaliya ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa sidii investment loo geysan lahaa maalgelin loo sameyn lahaa marka shir aad u fiican buu ahaa waana presentationka ugu horeeyay sameeyay aad baan ugu qanaacnay guud ahaan kuwaas waxay ahaayeen marka kulamadii gaargaarka ahaa ee aad la sameynaysay madaxda caalamka laakiin wali waxa harsan khudbadaadii weyneed aad ugu tala gashay golaha guud ee qaramada midoobay maalinta sabtida aad jeedin doontaa maxaa qorshahu yahay sabtida way bisha 24 waxaan u sheegaynaa dadka Soomaalidu waxay leeyihiin inay sheegaan sheekadooda inaan sheegno halkaan ka nimi halkaan joogno iyo geediga halka aan u soconno marka khudbadaasi waxay noqon doontaa inaananu meel madow ku jirin inaananu rabshad badnayn inaan nahay dad Soomaaliya inaan nahay dad nool inaan nahay dadka Soomaalidu ay yihiin dad xoog badan oo dhibaatooyinkii soo maroo dhan soo dhaafay maantana election tagaya baritana wax ka sii fiican qabsanaya jaarkooga nabad la'a gudahoogu nabad uu yahay riijamadooda samaystay system ay ku wada noolaadaan samaystay marka waxaan rabnaa sheekadaasi inaan adduunka u sheegno oo la qaybsanno iyadoo furan
marka ugu dambeyntii mudane wasiir waxaa socota dacwadda ku saabsan badda Soomaaliya u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya maanta waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay barnaamij weyn oo arintaas ku saabsan maxaad naga biirin kartaa oo xog aad haysaa waxaan u maleynaa barnaamijkaasi inuu noqdo barnaamijii lagu support gareynayay waayo halkaynu joognay 2 sano ka hor markii la lahaa waraaqa la qoray oo waa la bixiyay badda maantana waxaan joognaa koortkii adduunka ugu sareeyay on ra'yigeena ka sheeganaynaa dhulkeena ku soo qaadanaynaa baddeena ku soo dhaweynaynaa marka insha Allah Soomaali meel ay joogtaba inay support gareyso dadka inoo dacwiyaya iyo dawladda Soomaalida oo lacag badan iyo tamar badan iyo talo badanba ku bixisay arintan aad baad u mahadsantahay mudane wasiir aad mudan caasha